داوديان كسر لواذا برنامجك عيد فنك يسوعان تاع مقعي وعبد الكريم أحمد عاو هالكن وحا يقو مرتيا فنان داير مختار عبد الجامع مختار وطني oo caawa halkan ku soo bandhigi doona heeso cusub oo ugu tala galay habeenka ciida 2015 July 17 muxtaar ku soo barnaamijka waan dhawahay عبد الكريم aad baan ku salaamaya waan dhawahay tan soo maadsanta muxtaar hadii aan marka hore ku bilowno taariikhda fanka goorma bilowday fanka taariikhda fanka waxaan bilaabay fanka 2010kii waxaan ku bilaabay wadanka Uganda Kampala waxaan ku bilaabay group koox leeyahay saxan saxo aniga iyo ayaan Kampala ayaan warsamo shire waxaan halkan ka salaamaydana iyo adada labadaas marka taqaanana group aan fanka ku bilownay Kampala 2010kii صح muxtaar caawa maadaama ciid tahay heestee ayaad jeclaan lahayd inaad ku bilowdo oo aad daawadayaasheena caawa kaga farxiso waxaan ku bilaabayaa hees la yiraahdo macaankii oo waxa ereyada iyo laxanka ana samaystay ereyada iyo laxanka baadaas kale ereyada iyo laxanka ana muusigana waxa ay tumay Qaasim Maxamed Karaamo isagana halkan ka salaamayo heestaas waan u talagalay iyo heeso kale oo badan oo iyaguna cusub waata heesta magaceed heesta waxa macaankii dunida waa hees jacayla waana heesaha wayaha dabdhaasiga صح waata daawadayaal caawa heesteena ugu horeysa macaankii dunida ereyada iyo laxanka waxa isle muxtaar soo dhawaad
inuu mudan yahay jacayl inana maalinteeni tahay magaaladu waa ogtahay inuu mudan yahay jacayl inana maalinteeni tahay magaaladu waa ogtahay inaad marwadaydi tahay iskiyo magantayda tahay ayaan mawla mahadidha ayaan mawla mahadidha inaad marwadaydi tahay iskiyo magantayda tahay ayaan mawla mahadidha ayaan mawla mahadidha waa tahay daawadayaal heestaas macaankii dunida intaas naga eegaato mukhtaar waxaa jira heesa badan oo jacayl ku saabsan oo aad qaaday muddooyinkii u dambeeyey heesta ka xigta heestaba jeclaan lahayd inaad soo qabato heesta ku xigta aan ugu talagalay daawadayaasha sharafta leh waxay tahay hees la yidhaahdo caashaqu cadaalad ma aha. heesta ereyadeeda iyo laxanka baya iska leh erayada iyo laxanka anigaa leh muusigana waxaa ii tuwan Bashiir Hanuuniye oo raagan ka salaamayo. heestaas ma dareen adiga kugu dhashay awgeed baa mise waa hees uu aad yacni maskaxdaada mar keliya kusoo degtay heestaas horta heesahayga inta badan waxaan ku sameeyaa waqtiga yacni marka wax runa oo igu yimaadaan ka sameeya anigu heesaha anigu abwaan ma dhihi karo abwaan baan ahay mulaxamistaan ahayna ma dhihi karo laakiin heesahayga iyo erayadaba waxaan ka samaystaa iyo laxankaba markay wax igu dhacaan markaasaan samaystaa oo qayb ii kaydaan kala soo baxaa. heestan waxaan ka sameeyey qiso dhaba oo aniga igu dhacday qisadaa dhabtahay aniga igu dhacday isla markaan ka sameeyey 3 cisho kadib Bashiir baan uga tegay Bashiir Hanuuniye kabacdina weli tumay khayr Allah siiya wata saasay ku tumay heestan markaas saan u fahmay waxa weeyaan waa dareen adiga kugu dhashay laakiin صح muusigan waxaa tumay Bashiir Hanuuniye muusiga Bashiir Hanuuniye فنان هدان فرصة كوسيو عوا ما دام يتهاي هبين عيدة يتجعلان لهيد إن هالكن كسلامته halkan inaan ka salaamo waxaan ka salaamayaa dhammaan eheladeyda iyo qaraabada dhammaan reer Cabdiloodan dhammaan eheladeyda dhan waan salaamayaa abti adeer eedo habar yar ehelkayga dhan walaaladay iyo Soomaali oo dhan waan salaamayaa meel kasta ay joogto fanaan kasta markuu fanka ku soo beeray waxaa jirta dad soo gacan qabta ama soo taageera adiga yaad maanta halkan ka xusi lahayd oo aad oran lahayd fankayga waxay ka geysteen qayb libaax absolutely waa runtaa qof kastaba qof baa gacan qabtay geedna maxaa ku dhahay xididlaan ma baxo waxaa fankayga gacan qabtay oo aan halkan ka salaamayaa dad badan runtii saxa exactly runtii markii ugu horeysay waxay gacan qabtay nin la yiraahdo Abuukar Yare wuxuu joogaa magaalada Muqdisho waan salaamayaa isaga waxa kale gacan qabtay niman badan oo musician ah oo kamid yahay Bashiir Hanuuniye JK Cabdi Wali Rasta oo isagana kan ka salaamayo oo studio-diisa markasta codkayga duuba ragaas oo dhan baa gacan qabtay yani khibrad badan oo fanka aan siiyay siiba JK ninka la yiraahdo iyo Bashiir Hanuuniye wax badan ay faa'iideeyeen oo yani عندي كراوي فايدين واحد بدن بيقتل مالي كرا حاجة فنكر صح فيديو أغلى لهاي أو إنترنت كلا قد دعوان كرا هسها كم ده إنترنت ما كوتشران إنترنت كهاو كوتشران فيديو مثل حكي لكن هل فيديو بيجوري عادي قاعد نهار فردي عم يقضوا بي صح عاود الاستوديو قاعد شو عادي قلفت قاعد بدي قاعد قبتي وكاجا ما هتعلنيها وعبد كرينا فيديو بيجوري عادي يقضوا بي هيستا برشة
barashada leedahay hore dhiga duubtay صح sanadka bilowgiisii sanadkii hore dhamaadkiisii ayay ahayd markay dhiga duubaysay واضح إما كهستا studio-gaagan aan kuuga imaada dhiga duubtay صح وأنا حسوستا runtii waxay dabeen xasuus leh haddii aynu soo noqon heestan caashiq mع cadaaladda daawadayaasha maxaad halkan fariin u marin lahayd daawadayaasha halkan fariin waxaan u marinayaa dadka isjecel baa heestan dhegeysan kara heestan dadka isjecel ma aha yacni laba qof oo isjecel waxay dhegeysan karaan heestii markii hore aan qaadayay macaankii dunida laakiin tan waxaa dhegeysan kara qofkii ay sidoo kale ku dhacday dareenkayga oo kale yeelan kara oo ah adigu dareenkaagu waa gabadh aad jeclayd oo kugu ciyaartay markaad exactly yacni qof aad jeceshay adigu oo aan saad u jeceshay ku dareemaynin marka runtii gabadhaas iyadana laftigeeda halkan waan ka salaamayaa magaceeda halkan uu sheegayo qof kasta oo ay saas ku dhacdana heestaa waxaan umaleeyaa inuu isku daweynayo oo ay qusayso صح waa tahay daawadayaal mar labaad waxaanu leenahay ciid mubaarak imikana haatan kusoo dhawaada heesta cusub ee magaceeda la yidhaahdo caashaqo mع cadaaladda iyo fanaan mukhtaar cabdi jaamac mukhtaar wadani
عشقي سوري عجبي عجيبي وعباره يابلي عجبي عجيبي وعباره يابلي الميلادي حماته عشقي سوري المعيد هوس مري أنا عليسيو عقتو من تيساري عقتو من تيساري المعيد هوس مري أنا عليسيو عقتو من تيساري عقتو من تيساري waa tahay daawadayaal waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad bida leenahay ciid mubaarak caawa halkan waxaa igu martiya fanaan mukhtaar heestii imaka aad qaaday ee magaceeda la yidhaahdo cashiqu cadaalad maha saad ii sheegtay waxay ku timi in gabadh aad isjecleedeen aad isfahmi weydeen ay adkaatay inaad isfahantaan oo aad yani cadhadeeda badan ama dagaalkeeda badan aad heestan ay kugu dhalisay marka jacayl noociyaba adiga yeelan tahay dhex maray sidee ayuu soo ku dambeeyey jacaylkiinu markii dambe horta cabdikariino waa sax waxay ku timi qiso dhaba waa aniga ku sheegay jacaylkeeda meesha ku dambeeyey maxaan ku dhahdaa hadda ma ka sheekeyn karo laakiin ultimately waa wax dhammaaday weeyaan waad aragtaa waa calaacalay calacalkina waa kaas marka waxa dee yani heestan kugu dhaliyaba waxa weeyaan yani heestan way carab badnayd waxay doonaysaa markasta inaad adigu raali geliso inaad adigu tahay qofka wax raali gelinaya hadda isbaanti sax runtii waa runtaa waay carab badnayd sideedan bini aadamku dhanba maxaa qodaa isku dhama ma aha qof bini aadanaho isku dhan adduunka ma jiro sax siiba dumarkuna waa maxaa qodaa nisaa waana maxaa ku dhahdaa waxa weeyaan yani in markasta laga ronaado oo aynu innaga dee u mas-uula u indhaa sax inaanu markasta ka caqli ronaano innagay waajibkooda saareen sax marka laakiin waxaa jirta naf yani dareen kugu jira ayaa mararka qaarkood dul qaadanaynin sax oo يعني adkaysanayna ha gabadh markaad jeceshiin oo kale yani waxay gabadhu u baahan tahay inaad adigu dul qaato ha markasta iyadu yani ay kugu khaldanto taasoo kale ama dee gabadhaas kale waxaa la odhan karaa adigaa wada ama de adiga yani ma garanaysa hogaaminaya u dul qaadan kara markastan dee jacaylkaasi ma noqdo mid waara laakiin labada qof markay balance leeyihiin oo dee horta laakiin iyo cabdikariino adaa hadalka kule ha kaa dhexgalay waxaa jirta jacaylka lagu sheegayaaba horta cadaalad ma aha oo aniga hadda sheegaya sax jacaylka sidiisaba cadaalad ma aha laba qof oo intay isjecel yihiin yani si isu jecel dhabo oo isku waarta way yaryihin baan filayaa kolle anigu ima soo marin jacayl yani intaan yani nolosheeda noolaa maanan arag yani jacayl laisla qaybsanayo meel lagu wada nool yahay laakiin intan adigu ma jeclaa ha inantan ha intan anaa yani dee waxaad nafteyda ii sheegaysaa in anigu jeclahay mar kastana nafteyda waxay ii sheegaysaa inaan yani anigu wax jeclahay cuqdad baan ka qaaday markaa jacaylka laftigiisa sax oo waxaan qabaa cuqdad jacaylka ah baan qabaa jacaylka laftigiisa cuqdad ka qabaa dadku ma yidhahdaa qofkaas cuqdad buu qabaa ayaan lala hadlin qofkan sidan cuqdad anigu jacaylkan cuqdad ka qabaa waan gartay waxaan u maleeya inuu keligay uuna igu dhaco uusan dadka kale ku dhicin sababtoo ah cashiq cadaalad caashiqu cadaalad maaha oo caashiqu yani hadduu cadaalad yahay qofta aan jeclay waxaan arki lahaa iyadoo soo ooyeyso soo dhul dhacday soo mar kasta anuunbaa adun baa yani dul qaadanaya la hadlaya ee xitaa ma garanaysaa dee yani tallaabada u horeeya qaadaya marka jacaylkaasina badanka ma suurtagala waayo waxaa loo baahan yahay labada qof inay balance yeeshaan oo ay yani isu dul qaataan oo qofba qofka kale cadhadiisa soo garanaya qofka kale uu qofkii dejiyo in laysu samro oo laysu samro waa wax muhiima qur-aanka in loogu taala in laysu samro laakiin sabanka maanta jooga samirku wuu yar yahay inkastoo aanay soomaalidu jacayl ba waxba ka aqoon haddana laakiin soomaalidu jacaylka waaba u dhintaanba laakiin saad mar dhaweyd adoo ila kaftamaya waxaa jirtay baan u malaynaya hees aad
jacaylka aad ku ilaawisay oo aad yani soo saartay balse music aan loo tumin heesta ereyadeeda adigoo mahadsan madqac noo yarasay صح 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 ها هيستا وان soo wada hadeer insha Allah waxay soo baxaysaa wiigagan soo socda iyaduna heestaas iga hawl yaraysa leeyahay iga hawl yaraysa ha marka intii aad jecleeday ha ay u baahneed inaad mar kasta dad adigu timaadid ha yani iga hawl yaraysa ka dashay wadareemi kartaa qof haduu ku dhaho waad dhibtay sax de wad iska diinaysaa qofka marka dhibtay sax marka runtii waxa weeyaan heestan waxa la yiraahdaa iga hawl yarayso waxaan leeyahay haddan haybadaadiyo horumarkaaga maxay ahayd waan qalday haddan horumarkaagiyo haybadaada dili jiroon horta aada taagnaa oh hey 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 horta aada taagnaa halkaad igaga taaliyo halistiyo hankiyo ka reebay halistee haddaba iga hawl yarayso heestaas u dhacaysaa micnaheeda laakiin heestaas way soo socotaa waxaa jira mukhtaar yani heesa badan oo jacayl ah laakiin heestan caashiq cadaalad maaha waa hees runtii aad aniga soo jiidatay maxaa yeelay heesta ayaaba ku sheegaysay in dee yani ma garanaysaa caashiq aanu cadaalad baahayn oo dee markas dee labadii qof hees jecel yani qof uu jacaylku ku badan yahay ay adag tahay inuu dee qof ahaan oo jacaylka yani ay labada qof isla qaybsadaan laakiin heestaa inta haddii aynu kaga gudubno heesta ku xigta heestee ayd jeclaan lahayd inaad daawadayaasha caawa ugu martiqaadid heesta ku xigta ayaan ku martiqaadi lahaa waxaa la yidhaahdaa dhool ha bartaas maxaan qodaa erayada iyo laxankaba yaa iska leh erayada iyo laxanka anigaa le anigaa samaystay codkana anigaa dee ku qaadaya muusigana waxaa tumay Bashiir Hanuuniye oo halkan ka salaamay isaga xaaskiisa Axlaamba waka صح laakiin aan kula yar kaftay mukhtaare heesaha caawa aynu halkan ku soo wada qaadan doono oo dhan laxanka iyo ereyadaba adiga iska leh ha aniga leh hal hees basuun baa ku jirta oo wadaniya heesta waxaa samaysay Abwaan Dhoofo Khalif Siyaad oo aan halkan aad uga salaamayo hooyo Soomaaliyeed waxaana ugu tala gashay gobolada dhexe oo hadda midoobay dawladda samaysteen ayay ugu tala gashay heesta waxaa la dhahaa Mudug iyo Galguduud iyada erayada samaysay laxanka laakiin ana saartay muusigana Bashiir Hanuuniye Mudug iyo Galguduud waa taway dhamaatay heestaas Mudug iyo Galguduud insha Allah aan leeyahay dhammaan bulshada reer Mudug iyo Galguduud gobolada dhexe aad baan halka uga salaamay oo hambalyeynaya صح laakiin heestaas waynu soo noqon doonaa imaka heesta taagan sadiisheegtay magaceeda waxaa la yiraahdaa dhool laxanka iyo erayada adiga ayaa iska leh صح daawadayaal waxaanu imika idinku soo dhaweyn doonaa heesta dhool ee uu qaadayo fanaanka daawadayaal leh Mukhtaar Wadani daawasho wanaagsan haddaan kugu shubo dhigayga haddaan kugu warabsho ruuxayga haddaan kugu shubo dhigayga haddaan kugu warabsho kamaba dhargaayo wadi ku dhex nooshe kamaba dhargaayo wadi ku dhex nooshe ruuxayga haddaan kugu shubo dhigayga haddaan kugu warabsho ruuxayga haddaan kugu shubo
igeyga haddaan kugu waraabsho kamaba dhargaayo waad igu dhex nooshe kamaba dhargaayo waad igu dhex nooshe sidii sabidhlaana ku dhowrayaayo dhuldhuulintaada ku dhafra habeenkii sidii sabidhlaana ku dhowrayaayo dhuldhuulintaada ku dhafra habeenkii dhukashada dibnahaan ku dhadhami lahaayo dhukashada dibnahaan ku dhadhami lahaayo runta kama dhegaysidee dhididka ma isku tiranaa dhooley dhabta ma isku qabanaa dhukashada dibnahaan ku dhadhami lahaayo dhukashada dibnahaan ku dhadhami lahaayo runta kama dhegaysidee dhididka ma isku tiranaa dhooley dhabta ma isku qabanaa ayahayga haddaan ku baxsho dharkayga sidii ku xidho ayahayga haddaan ku baxsho dharkayga sidii ku xidho dhaxanka ma baxaayo waan dheelalaaba dhaxanka ma baxaayo waan dheelalaaba ayahayga haddaan ku baxsho dharkayga sidii ku xidho ayahayga haddaan ku baxsho dharkayga sidii ku xidho dhaxanka ma baxaayo waan dheelalaaba dhaxanka ma baxaayo waan dheelalaaba dhaqtarada sidooda nafta kugu dhayaay dhawacaa sidiisaan ku dhowrayaayo dhaqtarada sidooda nafta kugu dhayaay dhulkashada dibnahaan ku dhadhami lahaayo dhukashada dibnahaan ku dhadhami lahaayo runta kama dhegaysidee dhididka ma isku tiranaa dhooley dhabta ma isku qabanaa dhukashada dhismahaan ku dhadhami lahaayo dhukashada dibnahaan
dhadhamin lahaayo runta kama degaysidee ididka ma isku tiranaa dhoole dhooley dhabta ma isku qabanaa daawadayaal mar labaad kusoo dhawaada barnaamijkeenii ciidda fanka iyo suugaanta. Mukhtaar, hees maxaad inoo haysaa oo cusub oo kale oo iyaduna kugu soo dhalatay waayadii ugu dambeysay? wallaahi hadda wixii aan wiigagan soo tumay albankayga hadda aan soo wado caawa aniga intiisa badan baa halkan kusoo bandhigay stuudiyahagan baa nasiib u yeeshay iyo mujtamaca bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ayaa nasiib u yeelatay caawa wixii ka dambeeyana dawaan wada soconaynaa waa wada joognaa. Sax, hees waxaa jirta galmudug iyo mudug iyo galgudud aad u qaaday. Heesta ereyadeedii laxankeeda iska leh erayada waxaa leh Dhoofa Khaliif Siyaad, abwaanad Soomaaliyeed oo halkan ka salaamayo hooyo Soomaaliyeed. laxankana aniga ayaa saartay. heesta magaceeda waxa la yiraahdaa mudug iyo galgudud. muusigana waxaa tumay Bashiir Hanuuniye oo heesayga inta badan hadda albankan cusub intiisa badan tumay. caawa heesana kusoo bandhignay 3 buu tumay. sax, waxaan kala halkan ka salaamay kaga faa'iideysanayaa oo u hambalyeynaya bulshada reer mudug iyo galgudud. sax, ayaan halkan caawa ka salaamaya oo hambalyeynaya hambalyo dawladda dhalatay ayaan leeyahay. waa farxad u soo korodhay Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta jooga qolo kasta bay meeshooda nabad ku siiyo. sax, annaguna sidoo kale waxaan leenahay hambalyo mudug iyo galgudud. daawadayaal haatana kusoo dhawaada heestaas iyada ah waxaa mar labaad codkiisa qaaliga nagu qaadi doona fanaankeena Mukhtaar Cabdijaamac Mukhtaar Waday.
geesi daafacay hiddi hadday baataho hidda laguma dayn karo calankeena dahabka geesiyaashii daafacay hiddi hadday baataho hidda laguma dayn karo waxayga dardaarana ninkaa dooranaysaa waa geesi daacada dadku wada yaqaana waxayga dardaarana ninkaa dooranaysaa waa geesi daacada dadku wada yaqaana doqon weeye lagu xaman hadaa loo daleeyahay lagu dilin sarbeebaha sarka celka kin kara doqon weeye lagu xaman hadaa loo daleeyahay lagu dilin sarbeebaha sarka celka kin kara Diana ka dari kara daayinidi ku dharshe kaasay deeqee soo dorta mantaba Diana ka dari kara daayinidi ku dharshe kaasay deeqee soo dorta mantaba waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay haatan iyo gunaanadkii waxaa caaw halkan heeso cajaayiba inugu soo bandhigayay fanaankeena mukhtaar wadani mukhtaar waxaanu soo galnay barnaamijka gunaanadkiisii heestii ayaad jeclaan lahay inaad ku dhamaystirto barnaamijkan caawa ciidda fanka iyo sugaanta waxaan jeclaan lahaa inaynu u saaro heestii barasho oo aad adigu hore iga duubto videogeeda sax heestaas rabaa inaad usoo saarto ereyada iyo laxanka baa iskale heesta ereyada iyo laxanka taana anaa lahaa muusigana waxay tahay bukaryare abubakar yare oo muqdisho jooga oo muqdisho isagana aad baan u salaameynaa muusigaystaha caanka waxaanu leenahay dhammaantiin daawadayaal ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak sidaas iyo nabadgelyo iyo kulan dambe oo xisre waanigo cabdikariin axmeda waxaa kaloo halkan isaguna erey ka dhiiban doona fanaankeena waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan eheladeyda iyo qaraabadeyda saaxiibaday waxaan salaamayaa fanaaniintoo dhan waxaan salaamayaa muusishanadoo dhan khaasatan abukaryare bashiir hanuuniye qaasim maxamed karaama jk cabdiweli rasta dhammaantood waan salaamaya muusishanadeyda iyo fanaaniinta dhan waan salaamayaa iyo adigoo cabdikariina oo barnaamijkan igu soo casuumay runtii markasta maxaan ku dhadaa aynu wada joogno saaxiibkina ah waa mahadsanta saaxib aniguna sidoo kale waan ku salaamayaa daawadayaal waxaanu idin leenahay ciid mubaarak dhammaantiin sidaa iyo kulanti dambe oo xiisa leh isbaratan barbaarka xulato wada bertaan cashaqa ruux isbaratan barbaarka xulato wada bertaan cashaqa baburka raacdo beledkele kaado baburka raacdo barya kala maqnaataan
بريك على مقناتا وضبورك الراعدو بلدك لكادو وضبورك الراعدو بريك على مقناتا بريك على مقناتا Buglaisiyo olambena ugaya Nadonye Ilaba buglaisiyo olambena ugaya القدورتيو بالكنا بيسا انتبه القدورتيو بالكنا بيسا برككو قهايسو برككو قهايسو فقدم هدانك يا بابا سين كانوا قبنشدا انتبه القدورتيو كنا بيسا انتبه القدورتيو كنا بيسا برككو قهايسو برككو قهايسو تقدم هدانك يا بابا سين كانوا قبنشدا واني قنبدادك وداري سيديسي Olioga yeshe bugaygu jacayl Wanigan badade odari sidisi Olioga yeshe bugaygu jacayl أنا معوني كرو بيهنا مدايديو فنانا كنولو وتتيو عيارا ينام بودم هنبلوي هسا أنا معوني كرو بيهنا مدايديو فنانا كنولو وتتيو عيارا ينبو دمي هنبلوي هسا قلبي هلد عليك وقردي هوينكا قلبي هلد عليك وقردي هوينكا باتاي كودالاتيو ولك اي كنوشان سدا الدنيا دا قلبي هلد عليك وقردي هوينكا قلبي هلد عليك وقردي هوينكا بارتاي كودالاتيو ولك اي كنوشان سدا الدنيا دا حدالي وريو بنام بلي بعبور مراعي شبريخ سيقيدا عكتبوري ميستا برفكان لغي كبا حدالي وريو بنام بلي بعبور مراعي شبريخ سيقيدا عكتبوري ميستا